galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa galabnimo Arbacada taariikhduna ay tahay 11 bisha February sanadka 2021 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. dhegeystayaal idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay si weyn uga soo horjeedo in dib loo dhigo dacwadda badda ee kala dhaxaysa Kenya ee loo madlan yahay bisha March. tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhiman yihiin 15 March 2021 tiina shalay soo saareen warqad xeerlaaliyahooda guud uu soo saaray oo leeyahay ma iman karo. waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasiyiinta qaar ka mid waxa weeye inaanay dawlad sharciba ka jirin dalka Soomaaliya. waxa kale oo dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga VOA toddobaadkan aan ku eegayno xaaladda cakiran ee siyaasadda Soomaaliya iyo waliba sida looga gudbi karo. waxay la tahay dabcan ma horeyso in la isugu yimaado shir dambe oo degdeg ah waanan qabaa fikirka ah shirka dambe oo la imaanayo inuu yahay shir sal ballaaran oo ay kasoo qayb galaan saamiyada siyaasadeed ee dhan dalka gaar ahaan musharaxiintu in beesha caalamku ay goobjoog ka noqoto observers ay ahaato. kooxda maamulaysa dacwad ku oogista Trump ee aqalka sanadka Mareykanka oo shalay soo bandhigay eedeymo cusub oo ay ku xoojinayaan eedaha loo haysto madaxweyne Trump. qodobadaas iyo waliba kuwa kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ay noo hayso Sahre Ciidla Nuur. dalka Koonfur Afrika oo noqonaya dalkii ugu horeeyay ee laga bilaabay tallaalka xanuunka coronavirus ee qaaradda Afrika ayaa shaaca ka qaaday in ay ku horeysiinayaan shaqaalaha iyo howlwadeennada caafimaadka ee safka hore kaga jira howlaha gargaarka caafimaadka. nooca tallaalka ee qaadatay Koonfur Afrika ayaa ah ka ay samaysay shirkadda Johnson & Johnson. wasiirka caafimaadka ee dalkaasi oo xalay warbaahinta ka sii daayay warbixin la xidhiidha sida ay tallaalka uga howlgalayaan ayaa sheegay in dalka Koonfur Afrika uu iska daayay qorshihii ahaa inay isticmaali doonaan tallaalka ay sameeyeen jaamacadda Oxford iyo shirkadda AstraZeneca kadib markii la xaqiijiyay in aanu wax weyn ka taraynin nooca cusub ee fayraska ee ka bilowday dalka South Africa. tallaalka ay samaysay shirkadda Johnson & Johnson ayaa la sheegay in halkii mar ee dadka lagu mudo ay ku filan tahay qofka halka tallaalka shirkadaha kale ay waajibtay in 2 jeer qofkiiba lagu mudo. toddobaadkan ayaa si tijaabo ahaana loogu muday tallaalka 44,000 oo qof oo kasoo kala jeeda wadamada Koonfur Afrika, Mareykanka iyo Latin America. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ugu baaqay wadamada reer galbeedka inay dib u dardargeliyaan heshiiskii nukliyeerka ee dowladda Iiraan iyo wadamada xooga weyn ee dunidu ay qalinka ku duugeen sanadkii 2015. Mr. Ruuxaani oo Arbacadii shalayta khudbad ka jeediyey munaasabadda sanad guurada kasoo wareegtay xilligii kacaanka islaamiga ah ee dalkaasi ka hana qaaday sanadkii 1979 ayaa sheegay in dhammaan dhinacyadii heshiiska ka galay ay dani ugu jirto inay sii wadaan hirgelinta qodobadii hore la iskula meel dhigay. waxaanu intaasi ku daray in Iiraan iyo wadamadii heshiiskaasi galay ay haatan haystaan hal jid oo kaliya sida uu Ilaahay ka rajaynayana uu jidkaasi hirgeli doono. heshiiskan oo Mareykanku qayb ka ahaa xilligii madaxweyne Barack Obama ayuu Mareykanku ka baxay markii uu xilka la wareegay madaxweynihii hore Donald Trump. waxaana haatan laga dhur sugayaa go'aamada kama dambaysta ah ee ka soo baxaya Joe Biden. mas-uuliyiinta hay'adaha WHO iyo UNICEF ayaa ku baaqay in la badiyo wax soo saarka tallaalka xanuunka coronavirus. waxaanay ka digeen in dunidu halis ku jirto haddaan tallaalkaasi la wada gaadhsiin wadamada caalamka. warbixintan ay labada hay-adood wadajirka u soo saareen ayaa lagu sheegay in 4 meelood marka loo qaybiyo tallaalka haatan lasoo saaray 3 ka mid ahi ay haystaan 10 wadan oo keliya.
dalalkaasi oo ah kuwa 60% ugu dhaqaalaha badan dunida. warbixintan oo ay hay-adaha qaramada midoobay soo saareen goor dambe oo Arbacadii shalay ayay ku sheegeen in 130 wadan oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 bilyan iyo badh qof aanay haysanin in hal qof lagu mudo oo tallaalka fayraska, taasina ay kor u sii qaadayso dadweynaha dunida ku nool ee aanay fursad u haysan helitaanka tallaalka. wadamada ku yaala qaaradda Afrika, bartamaha iyo koonfurta qaaradda Ameerika iyo kuwa ka tirsan Asia ayaa la sheegay inay ka mid yihiin dalalka aan helin haba yaraatee tallaalka xanuunka coronavirus lagula tacaalayo. 4 bilood ee ugu dambeeyayna waxaa la xaqiijiyay in isbeddello cusub ku yimi bu'da unuga fayraska keena xanuunka COVID-19. aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warka caalamkeena akhrinaysa. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. aan ku horeynay dowladda Soomaaliya ee waqtigu ka dhamaaday ayaa sheegtay in ay ka soo horjeedo dalab ay sheegtay in dowladda Kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ si dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda dhinaca badda ee Soomaaliya kala dhaxaysa. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo magaalada Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya oo tallaabada Kenya ka jawaabaysa ay qoraal u gudbisay maxkamadda kaas oo ay ka codsanayso inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda bilaabanaysa bisha Maaj. wariyaha VOA-da Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya in aysan marnaba aqbali doonin in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda dhinaca badda ee ay Soomaaliya ka gudbisay dowladda Kenya. tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhiman yihiin 15 Maarch 2021. kiina shalay way soo saareen warqad xeerlaaliyahooda guud uu soo saaray oo leeyahay ma iman karo. waxaan kaloo ku doodeen oo cajiiba oo la yaab leh sheegashadoodan hadda ay rabaan inay dib u dhigaan. waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasiyiinta qaar ka mid waxa weeye inaanay dowlad sharciba ka jirin dalka Soomaaliya. marka dowladdii kula doodaysay ee ay sahayseen haddaad dhisku wala fadhigarayso tirada dalkaasi dowlad male macnaheedu waxa weeye waa ciyaar laba kooxood u dhaxaysa oo ay rabaan in la yidhahdaan kooxdan kale xaq uma leh ee garoonka ka maqnaato ama keliga ayaanu imanaynaa ciyaaraynaa ama imanba mayno. wasiir Dubbe ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya in ay warqad u qortay maxkamadda ICJ ayna ku cadaysay mowqifkeeda ku aadan in ay diyaar u tahay in ay bilaabato dhageysiga dacwadda kana qayb gasho, isagoo dhinaca kale xusay in dowladda ay ka hortimid dalab Kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ah si dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda muranka badda. dowladda federaalka Soomaaliya saaka oo Khamiisa 12 February 2021 waxay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ xarunteedu tahay Hague dalka Netherland ay u qortay warqad ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la mudeeyay dhowr usbuuc kadib 15 Maarch 2021. isla markaana aynay dowladda Soomaaliya marna aqbalaynin dib u dhigis dambe oo afraad iyo shanaad. sababtoo ah dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaynuun yaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice denied. haddaad dib u dhigto xukun iyo maxkamad waxay ka dhigan tahay inaanad maxkamadda aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin inaad cadaaladda hor tagto ayay ka dhigan tahay. wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo ka hadlayay mowqifka dowladda Soomaaliya haddii ay dhacdo in maxkamadda ICJ ay aqbasho codsiga mar kale dowladda Kenya ay u gudbisay ayaa waxa uu yiri arrinta dib u dhigista dacwada oo markii la afraad la rabo in dib loo dhigo oo aanu saaka diidnay waxay dhabar jab ku tahay haddii mar afraad dib loo dhigo oo mar shanaad la geeyo cadaaladda adduunka iyo sumcadda maxkamadda. in maalin walba inta warqad la soo qoro la yidhaahdo ma geli karo dib noogu dhiga. si kastoo ay ahaato dhageysiga maxkamadda ICJ ee kiiska labada dal ayaa loo ballansan yahay 15 bisha Maaj ee sanadkan. hase yeeshee dowladda Kenya ayaa waxay doonaysaa in wadahadal lagu xalliyo khilaafka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya walow Soomaaliya ay taa diiday. xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa aad u xumaaday
iyadoo dowladda soomaaliya ay ku eedeysay dowladda kenya in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha dalka soomaaliya. xuseen babukar maxamed, v o a, muqdisho. iyadoo weli khilaaf adag uu ka taagan yahay hirgelinta heshiiskii doorashada soomaaliya ee la gaadhay 17 bishii sebtembar ee sanadkii hore ayaa haddana waxa ay dad badan oo ku sugan gudaha soomaaliya arrintaasi ay ku haysaa walaac xoogan. hooyooyin badan oo soomaali ah ayaa baqdin ka qaba in khilaafyada siyaasadeed ay horseedi karaan xasilooni darro amni oo saameyn ku yeelata noloshooda, iyagoo ugu baaqay dhinacyada ishaya inay xal la yimaadaan oo islamarkaana ay isu tanaasulaan. waa sida warbixintan uu magaalada muqdisho nooga soo diray uu ku eegayo cabdicasiis barrow. suuqan oo ku yaala degmada xamarweyne ee gobolka banaadir waxaa ganacsigiisa lafdhabar u ah dumar. nolosha qoysas badan oo ku nool caasimadana waa laga soo saaraa. in dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoog leh uu ka jirana waxaa sabab u ah isbeddelka amniya kan siyaasadeed ee salka u ah dowladnimada Soomaaliya. 30 sano ka hor markii uu dalku galay colaadaha sukeeye waxay hooyooyinkan Soomaaliyeed dusha u riteen mas-uuliyadda qoysaskooda. hadda oo Soomaaliya doorashada hirgelinteeda lagu heshiilayahayna waxa ay qabaan walwal xoog leh, sida ay VOA-da u sheegtay Maryan Taqal oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda SWDC. waqti la ballamay jiray, waqtigii la ballamayna waa la dhaafay. doorasho maanta astaysan oo maalin hibilane ma haysano. saameynta ay dumarka ku yeelan kartana qof kasta oo dareen lagu dareemi karaa. dumarkana maahane waxay ku yeelanaysaa maatida dhibaataysan oo dhan, sida dadka aan ama disbe eebalka loo yaqaana ama aan dadka dhibaatada gaarka ah qabo, dumarka, caruurta, dhalinyaradan xaabada laga dhigtay dabka lagu shidaayo ee laleeya soo orda iyo dagaala la idin gelina iyo kanaan la suubina. waa dhibaato weyn oo annaga naga taabanaysa dumarka haddaan nahay meel weyn. dumarka oo matalaad siyaasadeed ku leh labada aqal ee baarlamanka Soomaaliya haddana door kuma laha fadhiyada madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu ay kaga hadlayaan arrimaha doorashada iyo heshiisyada la xiriira. waxaana ay soo jeedinayaan in mas-uuliyiinta go'aanka u leh arrimahaasi ay u turaan bulshada nugul sida dumarka, dhallinyarada iyo dadka baahiyaha gaarka qaba, sida ay noo sheegtay Kaafiya Naaleeye oo ka mid ah aqoon-yahanka arrimaha dumarka u ololeeya. dumarka Soomaaliyeed haddaan nahay walaac baa inoo muuqda. waxaa inoo muuqda dadkii mas-uuliyadda noo hayay inaysan ahayn ku habboonaa inay mas-uuliyadda noo qadaan. dadka hadda jooga ee siyaasadda jooga weliba maamul goboleedyada, madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo dhammaan waxaa la rabay in la isku tanaasulo. tanaasulaadku waa halka keliya xal ee ummad lagu badbaadiyo. qofku markuu madax yahana waxaa laga rabaa inuu dadkiisa iyo dadka u turo, ma aha inuu asaga u rabo u fiiriyo. Taqal oo ka tirsan hay-adda horumarinta haweenka ee SWDC ayaa VOA Soomaali u sheegtay in dumarka Soomaaliyeed ay dhibaatooyin kala soo kulmeen colaadihii sukeeye, mar kalena aysan ogolaan doonin in dalka uu burbur ku laabto. anaga haween Soomaaliyeedaan nabadaan rabnaa, dalka wanaagiisaan rabnaa, maamul iyo nidaamaan rabnaa. qof nooma calaameysna, waxaa noo calaamaysan qofkii madaxweyne noo noqdanta garab taagana. ilaahay inuu noo suubiyo, ilaahay inuu nooga dhigo mid cadaaladda ka shaqaynaya oo ummadda way cadaalad falaya, in ilaahay albaabka naga soo geliyo oo ummadda Soomaaliyeed mid ay isku raacsan tahay oo dalka iyo dalka u hoggaansamayna. aniga qabiil ma rabno, midna ku taageeri mayna qabiil. qofka qabiil aaminsan iimaanka Allah geliyaan. qaar ka mid ah dumarkan ayaa u arkay in hablaha ku jira baarlamanka labada aqal ee Soomaaliya loo baahan yahay inay ciyaaraan door ku aadan dhexdhexaadinta siyaasadda mas-uuliyiintan ishaya, maadaama ay u arkaan in qaar ka mid ah mas-uuliyiintii loo igmaday hoggaanka dalka iyo maamul goboleedyaduba ay heshiin la'yihiin. marka nabadda inta la haysto doorkaada ciyaar, siiba dumarka siyaasadda ku jira ee hadda jaanis ku haysta inay dadka ka qayb qaataan, waa inay kor iyo hoos meel kastay marayaanba ay qayb ka noqdaan wada xaajoodyada socda, ay doorkooda qaataan sida ummadda loo badbaadiyo. waxa la badbaadinayo waxaa waaye nation, ma ahan dad. wadan dhan baa masiirkiisii wuxuu dhinac u leecayaa. Soomaaliya waxaa hadda dhammaaday waqtigii hay-adaha dastuuriga iyo kii madaxweynaha dalka, iyadoo aan la ogeyn goorta wadanka uu doorasho galayo. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho. markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga VOA-da oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda cakiran ee siyaasadeed
ee soomaaliya iyo sida looga gudbi karo. falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa. madaxda dowladda federaalka ah ee wakhtigu uu ka dhammaaday iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa la filayaa in ay kulan yeeshaan si heshiis ay uga gaaraan hanaanka doorashada Soomaaliya. Inkastoo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in lagu kulmo magaalada Garowe, haddana madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa isna soo jeediyay in kulankaasi lagu qabto magaalada Muqdisho. Welina rasmi ahaan looma sheegin in dhinacyadu ay isku raaceen goobta rasmiga ee kulankaasi lagu qabanayo. Beesha caalamka ayaa iyaguna wada dadaalla ay culays ku saarayaan dhinacyada Soomaalida si ay u dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay. Haddaba sidee xilligan u muuqataa xaaladda Soomaaliya? Rajo intee leeg ayaa si jirta si xal looga gaaro isfaham waaga hogaamiyaasha Soomaalida? Waxaan su-aashaasi weydiiyey madaxweynihii hore ee Puntland isla markaana ahaa ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas. Horta waa nasiib darro in xaaladdu wadanku meesha hadda ay taagan tahay inay soo gaarto. dabcan mas-uuliyadeedana waxaa iskale mas-uuliyiinta meesha joogta madaxweynuhu ugu horeeyo, gaar ahaan isaga iyo isagoo la rabay in uu mas-uuliyaddiisa waajibkiisii ahayd wadanku in doorasho uu galo, xilligeeda lagu qabto, la abaabulo, lagana baaraan dego mar hore ay ahayd. laakiin hadda meeshaan joognaa waxay la tahay dabcan ma horeyso in la isugu yimaado shir dambe oo degdeg ah. waanan qabaa fikirka ah shirka dambe oo la imaanayo inuu yahay shir sal ballaaran oo ay kasoo qayb galaan saamiyada siyaasadeed ee dhan ee dalka, gaar ahaan musharaxiintu. yani guddi ka tirsan kulligood kama soo wada qaybgeli karaan, laakiin qaar ka tirsanay oo ay iyagu iska socdaan kasoo qayb galaan, in beesha caalamku ay goobjoog ka noqoto, observers ay ahaato, in mataqaanaa tanaasul yimaado oo haddaan tanaasul imaanin oo aan compromise uusan imaanin dan doorasho lama aadayo. Shirka Dhuusamareeb ayaa dad badani u arkaan in aysan hogaamiyaasha Soomaalidu aad u kala fogeyn haddii mar kale la isku soo jiidana xal uu iman karo. Cabdiraxmaan Caynte, wasiirkii hore ee xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya kana mid ah madaxda Machadka Heritage, ayaan weydiiyey sida hadda loo qiimeyn karo is-horfadhiga siyaasadeed ee Soomaaliya. ani waxay la tahay xal aan ahayn horta Soomaalidu inay inta wada hadasho si kasta oo wada hadalkaas lagu kala boodo, haddana in laysku laabto xal aan ahayn horta ma yaallo. dal iyo dad meeshaan yaalla, doorasho laysku dirirana tabarteeda ma lihin. horta in laysku noqdo oo baaq madaxweynaha mar kale uu ka yimid waa wax fiican in laysku laabto. ama xamar ha ka dhacdo ama garow ha ka dhacdo, meeshay doonta ha ka dhacdo, iyadoo laga ambaqaadayo heshiiskii 17 September. kaasaa waxaan u arkaa inuu yahay saldhig lagu dul shaqayn karo. haddana runtii waagii maalmintii dhaweyd wixii lagu kala booday Dhuusamareeb markii la joogay wax weyn runtii horta ma ahayn. warka intaan ku weynay wax aad u yaro markii dee kor laga fiiriyo yar, laakiin dadkii markaas joogay iyo miiska wada fadhiyay la weynaaday ahaayeen. marka xal aan horta kaas ahayn ma jiro. inta badan siyaasiyiinta Soomaalidu waxay hadda isku raacsan yihiin in wada hadalku yahay wadada kaliya ee lagu gaari karo doorasho loo dhan yahay dalkana hore u sii wadi karta. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo toddobaadkii hore baarlamaanka hortegay ayaa sheegay in isaga dhankiisa uu isku dayay wax walba oo uu xal u arkayay, balse ay socon weyday. waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17 September. waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalahayn aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17 September, taasoo hadday suurto gasho ama suurtogeli weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka, sida doorashada guud ee qaranka, kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay. walaalayaal, annagu diyaar waxaanu nahay doorasho aasaaskeedu yahay 17 September.
sida uu arko xaaladda dalka ee xilligan iyo go-aan la-aanta hogaamiyaasha soomaalida ee doorashada ayaan sidoo kale weydiiyey xildhibaan cabdulaahi goodax bare ahaana wasiirkii hore ee waxbarashada ee xukuumaddii ra-iisul wasaare kheyre. soomaaliya waxay ku jirtaa xaalad aan weligeed soo marin in madaxweyne fadhiya waktigiisii dhammaaday xalna aan la haynin. waa xaalad runtii uguba oo adag, loona baahan yahay si xasiloon oo fikir wanaagsan la geliyo, muxuu ahaa danta qarankana laga fiiriyo oo aan la fiirin yaa wax helaya iyo aan wax helaynin. runtii waa arrin aad iyo aad u adag. waxaa tusaale ku ah markii waktigii madaxweynaha dhammaaday in xitaa hadda lagu heshiilayahay magarawaa layskugu tagaa iyo maxamedaa layskugu tagaa iyo waxba adigu ma tihid iyo anugu kuma ictiraafsanay iyo waxaas waxay adkaynaysaa gacanta cadowga ummadda soomaaliyeed oo ugu horeeya shabaabka. waxay ka jeedinaysaa muxuu ahaa aragtidii iyo dadaalkii iyo waxqabadkii lagula jiray muxuu ahaa shabaabka ayay ka jeedinaysaa oo ay ku jeedinaysaa wax aan wax soo saar lahayn, siyaasadaan wax soo saar lahayn oo runtii aakhirka bulbul keeni karto iyo in muxuu nacaybka ummadda soomaaliya dhexdeeda iyo siyaasiyiintu ay badato. xildhibaan fawziya yuusuf xaaji aadan wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya ayaa aaminsan in dhibaatada ugu weyn ee heshiis la-aanta hogaamiyaasha soomaalida ay saldhig u tahay nidaamka 4 ee siyaasada soomaalida saldhigga looga dhigay, waxaana ay qabtaa in aanan xal la gaaraynin haddii aan laga gudbin nidaamkaasi. doorashada waxaan ku talinayaa in doorashadan dib inta loo yardhigo muddo cayiman in la galo doorasho saxa oo aan dadbanayn. wax dadbani waa dadbaya waa qaldaya, dad baa ku dulman, haweenkaa ku dulman, dhalinyaradaa ku dulman, dad badan oo niyad hayo dabadda diaasbarada dabadda ka imanaysaa ku dulman, qabaa'ilka isku duldulman, qabiilaan loo ogolayn fara badanba oo berigii jabuuti laga tegay. marka madaxdu intay iska ilaabaan shir maalin walba la isugu imanayo car iyo car ay tahay, dalka ha loo naxo, ha laga fakero in doorasho toosa, waa doorasho xalaala oo dalalka dagaaladu ka dhaca loogu talagalay, waa doorasho ah 12 nooc ay adduunka ka mid tahay. waa ma u baahna tirakoob, ma u baahna in dalkao dhan la gaadho. inta dowlad goboleed iyo caasimadun baa laga dhigayaa magaalooyin safe ah. marka waxaa loo baahan yahay in mar uun la fekero. maalin walba god mas ku jira gacanta la gelinaya, waa laga soo saara, haddana waa lagu celina, waa laga soo saara, waa lagu celina. mar uun ansaxano cadaalad ha la galo. anigu taas waxaan u qabaa sidaa ko. waxaa jirta in siyaasiyiinta iyo waxgarad badane ay ka doodeen sidii wax looga bedeli lahaa nidaamka doorashooyinka mar wada dhacaya ee soomaaliya. xildhibaan goodax ayaana qabay in baarlamaanka hadda jira wakhtiga loo kordhiyo, fursadna loo siiyo inuu doorto madaxweyne muddo kadib marka lasoo dhammaystiro xukuumadda laga shaqeeyo doorashada baarlamaanka. markaana xal waxaan u arkaa in aan sahlno oo inagoo fiirinayna danta qaranka oo aanan fiirinaynin yaa wax helaayo iyo yaan wax helaynin, iyo xataa anagoo aan fiirinaynin sharciyadda iyo waxay ku fadhido. inkastoo aniga shaksiyan aan aaminsanahay inay sharciyad ay ku fadhido, waa la sahlayaa. aragtidayda waxaa loo sahlayaa iyadoo la isticmaalayo baarlamaanka hadda jirana uu doorto madaxweynaha. maxaa yeele waxaan dhacayoo dhan falastiin, waxaa dhacayoo dhan waxay salka ku haysaa kursiga madaxweynaha, hadday tahay gedo, hadday tahay kuraasta waqooyi, hadday tahay muxuu ahaa maamul goboleedyada, hadday tahay guddiga. wax kasta oo maanta laysku hayo laysku mari layahay waxay salka ku haysaa kursiga madaxweynaha, sidii qof uu sid bursan lahaa. marka in la sahlo oo la yidhaahdo baarlamaankan, maadaama baarlamaankii in la dhisay ay adkaatay oo intaasoo mataqaana carwataa ay hortaagan yihiin, waxaa sahlan in baarlamaanka hadda jiro in uu doorto madaxweynihii iyo kuraasta kaloo 6 ah oo guddoonka baarlamaanka. kadibna siday markaa dhaqanka ahaan jirtay, kadibna muxuu ahaa xukuumaddaas la dhisi doono ku timid madaxweynihii la doortay oo prime minister dooran doono
oo prime ministerkaas golaha wasiiro uu dhisi doono xukuumaddaas markaa baarlamaanka iyadoo aan la dhihin waa la dheereeyey iyo wakti kororsi iyo waxaa laga hadlin in xukuumaddaas ay daqiiqadiiba ku dhaqaaqdo muxuu ahaa inay baarlamaankii doorasho. sidoo kale waxaa fakarkaasi ku raacsan cabdiweli cali gaas ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. arrinkaas anigu waa soo dhaweynaya, waa runtii fikrad aada u wanaagsan weeye. dowladdeennii shacabka ahayd civilianka ahayd 1969kiina saasay ahayd. baarlamaanka xilligiisu waa 4 sano, madaxweynaha xilligiisuna waa 6 sano. ayadoo 64tii doorashadii baarlamaanka u dhacay ayaa waxaa weli madaxweyne ahaa ninka la yidhahdo aadan cabdulla cusmaan. aadan 67dii ayuu madaxweynimadii ka tegey. cabdishiid ayaa madaxweyne noqday. cabdishiidoo madaxweyne ah ayaa haddana waxaa dhacday baarlamaankii doorashadiisii march 1969kii. marka waxaa la yidhahdaa synchronization oo political organiska waana arrin fiican, sababtoo ah waxaa dhacaysa sida hadda firaad dastuuri dalka uga dhacay in marna aysan u dhicinine mar walbaaba ay jirto hay-ad sharciyad leh ee dalka xukunkiisa haysa marka arrintaasi marka waxay keenaysaa in mar walbaaba marna baarlamaanku uu standing yahay, marna executive branchku madaxweynuhu madax ka yahay ay taagan tahay. marka arrintaasi waa fikir aada u wanaagsan runtii. dastuurkii anagu aan qoray intaan la bedelinna saa ayaan ku qornay kii august 1deedii 2012 oo ahayd in xilliga madaxweynuhu uu noqdo 5 sano, aysan ahayn sida hadda ay ka dhigeen 4 sano. marka anuu fikirkaas waa soo dhaweynayaa, waana fikir aada u wanaagsan. marka maxaa ugu aragtaa fikirkaasi hadda inuu Soomaaliya ku habboon yahay oo uu wax bedelayo ama faa'iido u leeyahay? waxa weeye sababtoo ah hadda waan haynaa experience baan haynaa, waa nagu dhacday hadda in baarlamaankiina ay sharciyadiisa dhacday 27 December sanadkii lasoo dhaafay. kii madaxweynuhu uu dhacay 7 bishan habeenkii kala guurka February. marka firaad dastuuri hadda dalkii ku dhacay marka taana saano kale inay dhacdo saysa looga hortago ayay arrintaasi muhiim u tahay. isbedel weyn oo lagu sameeyo nidaamka doorashada Soomaaliya ayaa ah mid aan hadda furnayn. fursadda kaliya ee la haysta ay beesha caalamku riixayaana waa in lagu dul shaqeeyo heshiiskii 17 Sebtembar oo ah in doorasho la aado. sidoo kalena doorasho dhacda xilliyo kala duwan ayaa culeyskeeda iyana la iman karta, sida uu qabo Cabdiraxmaan Caynte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah. horta dee kor markii laga fiiriyo sawir fiican waa noqon kartaa labada doorasho in la kala weeciyo oo dhinac markii laga fiiriyo, laakiin dhinaca kale markii laga fiiriyo walaal yani waxay ila tahay arrintaas ceebo badan ay yeelan kartaa. waxaa ugu horeysa macnaheedu wuxuu noqon doonaa taas marka in 2 sano walba dalku uu doorasho galo. dal sabool ah oo tabar daran oo aad og tahay duruuftiisa amni meesha ay marayso iyo midii siyaasadeedna 2 sano walba doorasho ma qaadi karaa? waa su-aal weyn ay tahay inaan isweydiino. dhinaca kale marka laga fiiriyo sidoo kale hadda madaxweynaha iyo baarlamaanka kale isla dooranaya dhinaca kale ka fiican yahay waxaa kamid ah oo isla cusub yihiin inta badanna jawi degan oo wada shaqayn ku salaysan ay ka amba qaadaan. 2 sano ilaa 3 sanona waa wada shaqeeyaan, laakiin haddii la kala weeciyo ceebaha kale yeelan karta waxaa kamid ah inay isku liqdaarnaadaan markiiba, taasna ay culays ku noqoto madaxweynihii markaas la doortay xukuumaddiisa. laakiin xal wuu noqon karay arrinta ah baarlamaanku waxa doorto kan hadda jooga waxa doorto xal way noqon kartay. halkaas laakiin waxaan isleeyahay arrimo ku habboonaa wixii 17 Sebtembar ka horreeyay. xildhibaan Fawziya ayaa sheegtay in baarlamaanka hadda jira oo wax soo doorta ay u muuqato mid xal keeni karta, balse muhiimaddu ay tahay ka gudbidda nidaamka siyaasadda ee qabiilka salka ku haysa. fikraddaas waa fikrad saliima inay kolley kala duwanaadaan maxay ahayd toy baarlamaanka iyo doorashada iyo madaxweynuhu. waayo hadhow waa jahawareer. madaxweynihii wuxuu doonayaa dad isagu u soo qorto, wuxuu doonayaa dad isaga u maaragtay u codeeya. hadday kala fog yihiin oo sanada ma laba u dhaxayso waa ta ugu fiicanba. marka fikraddaas waa raacsanahay, laakiin doorashada waxa ii kow ah doorasho dadban ha laga gudbo, dalka hore ha u socdo, dadka adduunka ha la mid noqdo, qabiilkan madaxa laysu geliyo, timaha laysugu wada xidhiiyo, lugaha ha laga gudbo, ha la fakero. waa lagu soo jabay 20 sana lagu soo jabeeyey.
inkastoo waqtigu yaryahay fursado badan oo fikrada la isku weydaarsadana aysan hadda u muuqan suuragal waxaan shaki ku jirin inay muhiim tahay in mar kale wax la iska weydiiyo nidaamka doorashada Soomaaliya iyo saldhigeedaba 20 sano oo nidaamkani doorasho uu soo socday waxaa muuqatay in mararka qaar ay keento halis khatar gelin karta sharcinimada dawladda iyo jiritaankeedaba waxaana dad badan walaacoodu sii xoojiyay sida sahlan ee loo musuqmaasuqi kara nidaamka doorasho iyo suuragalnimada firaaq siyaasadeed oo dhici kara taasoo ay ugu dambayso dawladda hadda jirta iyo baarlamaanka oo labaduba muddo xileedkooda uu dhammaaday iyadoo aan heshiis laga gaarin nidaamka doorasho iyo soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo doorashada madaxweynahaba inta ayaana dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhiga VOA intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo. mahadsanid falastiin axmed imaan oo barnaamijkaasi bandhiga VOA noo soo diyaarisay soona jeedinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. goordhow dhegaystayaal waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo ay noo hayso Sahre Ciidna Nuur. dalka koonfur afrika oo noqonaya dalkii ugu horreeyey ee laga bilaabay tallaalka xanuunka coronavirus ee qaaradda afrika ayaa shaaca ka qaaday in ay ku horreysiinayaan shaqaalaha iyo howlwadeennada caafimaadka ee safka hore kaga jira howlaha gargaarka caafimaadka nooca tallaalka ee ay qaadatay koonfur afrika ayaa ah ka ay samaysay shirkadda Johnson & Johnson wasiirka caafimaadka ee dalkaasi oo xalayta warbaahinta ka sii daayay warbixin la xidhiidha sida ay tallaalka uga howlgalayaan ayaa sheegay in dalka koonfur afrika uu iska daayay qorshihii ahaa inay isticmaali doonaan tallaalka ay sameeyeen jaamacadda Oxford iyo shirkadda AstraZeneca kadib markii la xaqiijiyey in aanu wax weyn ka taraynin nooca cusub ee fayraska ee ka bilowday dalka South Africa. tallaalka ay samaysay shirkadda Johnson & Johnson ayaa la sheegay in halkii mar ee dadka lagu mudo ay ku filan tahay qofka halka tallaalka shirkadaha kale ay waajibtay in 2 jeer qofkiiba lagu mudo. toddobaadkan ayaa si tijaabo ahaan loogu muday tallaalka 44,000 oo qof oo ka soo kala jeeda wadamada koonfur Afrika, Mareykanka iyo Latin America. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ugu baaqay wadamada reer galbeedka inay dib u dardargeliyaan heshiiskii nukliyeerka ee dowladda Iiraan iyo wadamada xooga weyn ee dunidu ay qalinka ku duugeen sanadkii 2015. Mr. Ruuxaani oo Arbacadii shalayto khudbad ka jeediyey munaasabadda sanad guurada ka soo wareegtay xilligii kacaanka Islaamiga ah ee dalkaasi ka hana qaaday sanadkii 1979 ayaa sheegay in dhammaan dhinacyadii heshiiska ka galay ay dani ugu jirto inay sii wadaan hirgelinta qodobadii hore la iskula meel dhigay. waxaanu intaasi ku daray in Iiraan iyo wadamadii heshiiskaasi galay ay haatan haystaan hal jid oo kaliya sida uu Ilaahay ka rajaynayana uu jidkaasi hirgeli doono. heshiiskan oo Mareykanku qayb ka ahaa xilligii madaxweyne Barack Obama ayuu Mareykanku ka baxay markii uu xilka la wareegay madaxweynihii hore Donald Trump waxaana haatan laga dhur sugayaa go'aamada kama dambaysta ah ee ka soo baxaya Joe Biden. mas-uuliyiinta hay'adaha WHO iyo UNICEF ayaa ku baaqay in la badiyo wax soo saarka tallaalka xanuunka coronavirus waxaana ka digeen in dunidu halis ku jirto haddaan tallaalkaasi la wada gaadhsiin wadamada caalamka. warbixintan ay labada hay-adood wadajirka u soo saareen ayaa lagu sheegay in 4 meelood marka loo qaybiyo tallaalka haatan lasoo saaray 3 ka mid ahi ay haystaan 10 wadan oo keliya, dalalkaasi oo ah kuwa 60% ugu dhaqaalaha badan dunida. warbixintan oo ay hay'adaha qaramada midoobay soo saareen goor dambe oo Arbacadii shalay ayay ku sheegeen in 130 wadan oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 bilyan iyo bar qof aanay haysanin in hal qof lagu mudo oo tallaalka fayraska, taasina ay kor u sii qaadayso dadweynaha dunida ku nool ee aanay fursad u haysan helitaanka tallaalka. wadamada ku yaala qaaradda Afrika, bartamaha iyo koonfurta qaaradda Amerika iyo kuwa ka tirsan Asia ayaa la sheegay inay ka mid yihiin dalalka aan helin haba yaraatee tallaalka xanuunka coronavirus lagula tacaalayo. 4 bilood ee ugu dambeeyayna waxaa la xaqiijiyey in isbeddello cusub ku yimi bu'da unuga fayraska keena xanuunka COVID-19.
kooxda maamulaysa qaadista dacwadda ka dhanka ah madaxweynihii hore ee maraykanka ee donald trump ayaa arbacadii shalay soo bandhigay muuqaal fiideo ah oo aan horey loo arag oo la xiriira weerarkii 6dii bishii januari lagu qaaday dhismaha koongareeska ee magaalada washington. muuqaalkaasi ayaa xoojinayay dooda dimuqraadiyiinta ee ahayd in madaxweyne trump uu ku lug lahaa rabshadihii dhacay maalintaasi. wariyaha v o eda arrimaha koongareeska uga soo waranta catherine gibson ayaa warbixintan inooga diyaarisay. xuseen barre aadan ayaa soo jeedinaya. muuqaalo aan hore loo shaacin oo ku saabsan rabshadihii lagu weeraray xarunta koongareeska 6dii januari ayaa muujinaya sida ay xaaladdu ahayd. muuqaaladan oo ay duubeen kamaradaha ammaanka loogu talagalay ayaa lagu soo bandhigay fadhigii lagu dhageysanayay dacwadda ka dhanka ah madaxweyne trump oo lagu eedeynayo inuu isagu ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday koongareeska, sida uu faahfaahinayo James Raskin oo ka tirsan aqalka hoose ahna mas-uulka maamulaya dacwadda maamuska xayuubinta ee ka dhanka ah madaxweynihii hore. We will prove that the impeached president was no innocent bystander whose conduct was totally appropriate. waxaan caddayn doonnaa in madaxweynihii hore uu si toosa ugu lug lahaa isagoo aan qaadin tallaabo wanaagsan oo ku dayasho mudan. But that he incited this attack and he saw it coming. mudanayaasha dacwadda soo gudbiyay ayaa ku doodaya in isu soo bixii ka horreeyay rabshadaha ee uu madaxweynihii hore uu kula hadlay taageerayaashiisa uu xidhiir la leeyahay weerarkii lagu qaaday koongareeska, iyadoo ay ka horreeyeen hadallo lagu sheegayay in doorashada la musuqmaasuqay, sida uu tilmaamayo Eric Swalwell oo ka tirsan aqalka hoose. This was never about one speech. He built this mob over many months. arrintan ma ahayn mid hal khudbad ku kooban. waxa uu madaxweynuhu soo kiciyey qaswadayaasha isagoo fariimo u dirayay bilihii lasoo dhaafay, kuwaasoo rumaystay sheegashadiisa ah in doorashada looga shubtay. eedeymaha la xidhiidha doorashada ee uu Trump ku doodayay ayaa waxaa beenisay maxkamadda toddobaadyo ka hor intaan rabshaduhu dhicin, sida ay sheegtay Madeleine Dean oo ka tirsan aqalka hoose kana soo jeeda dimuqraadiga. ma jirto hal maxkamad ama hal garsoore oo ku raacsan in natiijada doorashadu ay ahayd mid khaldan. sidoo kale waxa ay ku doodayaan xubnaha dimuqraadigu in madaxweyne Trump uu isku dayay in uu carqaladeeyo hanaanka dimuqraadiyadda, sida ay tilmaamayso Stacey Plaskett. yaan la isku khaldin hadalka. madaxweyne Trump rabshadaha ma aanu sii saadaalin oo keliya, balse waaba uu dhiirigeliyey. qareenada u doodaya madaxweyne Trump ayaa sheegay in madaxweynuhu uu adeegsaday xaqa uu leeyahay hadalka xorta ah, islamarkaana aanu sabab u ahayn rabshadihii lagu weeraray koongareeska. dimuqraadiyiinta oo iyagu dacwadan wada ayaa waxay u baahan yihiin 17 senatar oo jamhuuri ah si dembiga loogu oogo madaxweynaha, arrintaasi oo u muuqata inay ku adkaan doonto xubnaha dimuqraadiga ah, sida uu sheegayo John Hutton oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Brookings. They're beholden to the former president himself. They see that their own political fortunes depend on Trump voters. waxay ku xiran yihiin madaxweynihii hore, waxaanay u arkaan mustaqbalkooda siyaasadeed inuu ku xiran yahay taageerayaasha Trump ee codaynaya marka la gaaro tartanka doorashada ee golaha sanadka, gaar ahaan gobolada ay jamhuuriga u badan yihiin. sidaas daraaddeed ayaa caddayn walba oo ay dimuqraadigu soo gudbiyaan mudanayaasha jamhuuriga oo iska indhatiri doonaan, particularly in Republican states. And so no matter what evidence. dacwadan ayaa waxaa ku xidhan mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweynihii hore ee Maraykanka haddii uu go'aansado inuu isku soo sharaxo xil heer federaal ah. aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan warbixintaasi inoo soo jeedinayay. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo xuseen xasan dhaqane. waxaa weli Soomaaliya ka taagan xaalad siyaasadeed oo cakiran. wax heshiis ah weli lagama gaarin hanaanka doorashada dalka. dowladda hadda jirta waxa uu waqtigu ka dhammaaday iyadoo aanan dalka u diyaarin qorshihii doorasho lagu aadi lahaa. haddaba ma habboon tahay in madaxweyne Farmaajo waqtiga xafiiska uu joogayo loo kordhiyo mise ma habboona? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdirashiid Faarax Cabdi oo xubin ka ah ururada bulshada rayidka gobolka Hiiraan, iyo Maxamed Cismaan Aadan oo isna xubin ka ah xarunta xalinta khilaafaadka. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdirashiid Faarax Cabdi. run ahaantii horta wadanka wuxuu joogaa ama la gaaray xilli doorasho maadaama uu dhammaaday muddo xileedkii madaxweynaha.
run ahaantii waxaa jiro madaxweynahaasi ka horeeyey oo sida xasan sheekh maxamed sheekh shariif oo ayagoo waqtigooda dhammaaday kursiga kusii fadhiyey run ahaantii waxaas leeyahay madaxweynahana taas waxbuuguma duwano oo xaq wuxuu u leeyahay inuu waxyaato oo intii wadanka isbeddelka imaanaya ama doorasho laga qabanayo inuu kursi kusii fadhiyo. waa mahadsan tahay maxamed cismaan. waay bismillahi raxmaan raxiim ani aragtidaas waa ka duwanahay. madaxweynuhu xilligiisii hadduu dhammaaday talada dalka ku wareejiyay guddoomiyaha baarlamaanka isla markaasna guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka ay qabaqaabiyaan qaabkii doorasho cusub waddanka ugu dhici lahayd. sababtoo u sabaynayn waxay tahay shirar badan ayaa waa sababta usoo laaban doonaa. cabdirashiid waxaa tiri waqtigii madaxweynaha uu ka dhammaaday inta laga helayo qof bedela ha sii joogo. maxay tahay sababta mar haddii waqti ku filan oo doorasho lagu qaban karo ay jirtay wixii ay dhici waayeen waxaa leedahay ha sii joogo maxay tahay? run ahaantii waxaan hasii joogo dhahay wax kale ma ahan. ma ahan waddanka inuu horta galo firaaq dastuuri ama oo madaxweynihii oo kursiga ka maqnaado. run ahaantii madaxweynaha dadaalo badan ama shirar badan oo ilaa 4 shirar ayuu qabtay oo ku raadinaya qaabkii doorashada loo qaban lahay sidii doorasho laiskula ogol yahay waddanka ugu dhici lahayd. run ahaantii maamul goboleeda iyo isheeg nimanka lalaha isheeg mucaaradka ayaa waxaa ku barashar gareeyey inuu waqtigan la gaaro ina doorasho dhicin. madaxweynaha dadaalo badan iyo wax isku dayo badan oo sameeyay ilaa haddana dadaaladii wadaa. marka waxaan leeyahay waa inuu intii doorasho laga gaarayo madaxweynaha kursiga kusii fadhiyaa. haye maxamed cusmaan. xuseenow sida aan ka warqabno waxaa dhacay shirar badan ayaa dhacay. dhammaan shirarkii dhaco o dhanna waxay ku dhammaadeen fashil. ma muuqato marka madaxweynuhu waa qofkii hore oo shirarkii hore qaybta ka ahaa. haddana waa isla asagii uun hadda waxaa qabaqaabinaya shirka kale shirkan isugu imaanaynaa. madaxweynuhuna mar kasta wuxuu dadku u sheegaa in haddii shirkaas lagu heshiin waayo inuu asaga sii joogaayo. marka waxay noqotay wax aan dhammaad lahayn. yani madaxweynuhu wuxuu keenayaa istakulo caqabad shir kasta oo maaragtay la qabto wuxuu keenayaa caqabad si shirkaas loogu kala dareero uu yirahdo anigaa sii joogayo uu yirahdo. marka arrinkaas waxay keenaysaa tusaale ahaan dhowr jeer ayaa waxaa lagu qabtay shirar dhuusmareeb muqdishoa shir lagu qabtay. hadda madaxweynuhu wuxuu ku baaqay shir kale in garow lagu qabanayo asagoo madaxweyne deni uu yiri shirkaas ha lagu qabto muqdisho oo aad moodid arrinkaas naftiisu wadatashi asagoon ka samayn inuu iska soo tuuray. shirkan waxaa muuqata inuu mari doono waddadii shirarkii hore oo madaxweynaha markasta uu sii dhihi doono waa lagu heshiin waayey marka anigaa sii joogaayo. shirkan waxaa laga yaabaa dhowr maalmood kadib ama bil kadib inuu shirkan ku baaqo haddana uu yirahdo waa lagu heshiin waayey anigaa sii joogaayo. waxay noqotay marka waddo iska furan oo aan dhammaad lahayn. arrinkaas marka wuxuu keenayaa in waddankii uu maaragtay jahawareer siyaasadeed galo in uu maaragtay beesha caalamka oo aan rabnay talada soomaaliya inay soomaali ku ekaato in maaragtay markaan la yidhaahdo intaasoo shirad qabateen waa ku heshiin wayseen tala gacantiina kuma jirto. marka taladii soomaaliya gacanteeda in laga wareejiyaan ka baqaynaa oo ajnabi ay gacantooda gasho. arrinkaas uu sabab u noqdo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday. waa mahadsan tahay cabdirashiid. taas aniga ila maahana mana qabo. run ahaantii madaxweynaha wuxuu isku dayey dadaalada badan. maamul goboleeda sida badan xayaato markii laga reeba 2 maamul goboleed. maamul goboleeda kale waxay ogol yihiin inuu dalka doorasho aado iyo madaxda xukuumadda iyo dowladdaba. run ahaantii maamulka Jubbaland oo run ahaantii caqabad ku ah doorashooyinkii asagoo xayaato dana shisheeyo xayaato ka shaqeynayo oo run ahaantii aniga ma qabo inuu ka shaqeynayo danaha Soomaaliyeed iyo Puntland oo anaga aan garanaynin waxay ka maqan oo u diidan tahay inay gudiyadii soo magacaabo doorashada ayna ogolaato doorashada. run ahaantii labadaas maamul ayaa waxaa caqabad ku noqday dowladdii federaalka inay doorasho qabato. maamul goboleedii kale sida badan waxay ogol yihiin inay hore u aragnay gudiyada soo magacaabeen inay doorasho dhacdo. laakiin labadaas maamul ayaa waxaa ku noqotay caqabad. ilaa hadda madaxweynaha dadaal ayuu wadaa siduu u xalin lahaay oo labadaas maamul ay gudiyada usoo magacaaban doorashada loo dhaqaaqo. waa mahadsan tahay maxamed cismaan. xuseen maamul goboleedadan hadda ma bilaaban weligood waa jireen. xal ayaana loo helay arrimaha doorashooyinka mar kasta oo ay timaado tanaasul ay madaxdii hore ka muujin jireen. wixii caqabad ah ama waxaa dhexgeli jiray maaragtay siyaasiyiin kale ama maaragtay ciddii markaas wax isku soo jiijiidi karta. madaxweynaha lagama yeelaayo waa layga diiday anaa sii joogaayo lagama yeelayo taas ma shaqaynayso. madaxweynuhu wuxuu maaragtay mar kasta uu hadalhayn ka dhigtay hebela i diiday. macnaha haddii adiga dadkii aad isku keeni weysay oo dadkii qanci weyday oo mar kasta aad soo taagantahay hebelaa i diiday beri hebel kale i diiday saa dambe hebel kale i diiday maalin kasta waa lay diiday uun arrinka madaxweynuhu u noqday. madaxweynuhu waxaan leenahay dadaan la diidaynin oo arrinta wadi kara ha ku wareejiyo hawsha. haddii kale waa layga diiday ma soconaysee
wadankan hortiisu maaragtay dhowr madaxweyne isku bedeshay madaxweyne shariif ayaa maaragtay doorasho qabtay waa leega diiday kama maqal siduu ku xaliyay wuu xalin jiray madaxweyne xasan sheekh wadanka yimid waa leega diiday kama maqal caqabad kastoo timaada siduu ku xalin jiray tanaasul sameey jiray doorasho wadanka dhici jirtay madaxweynaha marka halhayskiisa waxay noqotay un hebela i diiday haddii lagu diid maxaa samaynaysaa anigaa sii joogaya marka taas annaga waxaan u aragnaa inay tahay dictatornimo cusub oo madaxweynuhu rabo inuu soomaaliya uu hadda uu ka bilaabo madaxweyne waqtigiisa dhammaaday inuu taladii waddanka iska sii haysto taasna waddankan diyaar uma ahan ummadda soomaaliyeedna xal uma ahan madaxweynuhu marka waxaan leenahay waa layga diiday maahan xal la imow haddaad xal la imaan karin arrinta wareeji dad aan laga diidayna hawsha wadi doona doorashana qaban doona haye cabdirashiid run ahaantii wuxuu dhaa walaakii talada ha wareeji talada ayaa loo wareejinaa guddoonka baarlamaanka wuu caddeeyey mowqifkiisa wuxuu dhahay wixii 2016 dhacay iyo 2012 wixii dhacay ayaa dhacaya ayuu yidhi cidda loo wareejinaa talada yaa waaye ma maamul goboleeda lagu wareejinayaa mase mucaaradka lagu wareejinaya run ahaantii aniga waxaa qabaa inuu madaxweynaha talada sii haayo ilaa intii doorasho laga galaayo waxyaalaha hadda taagan oo caqabadahane wuxuu diyaar u yahay madaxweynaha inuu xaliyo ilaa haddana waxa hor taagan waa caqabadaha hor u sheegay waa jubbaland insha allahu tacala arrinteeda waa la xalin doonaa wadankana doorasho waa aadi doonaa talada dalkana waxaa sii hana inta doorasho laga gaala madaxweynaha maxamed cusmaan maxay kula tahay saameynta ay ku leedahay arrimaha doorashada khilaafka gobolka gedo khilaafka gedo runtii waa aska marmarsi anisaan u arko madaxweyne wuxuu aqbalay axmed maxamed islaam inuu yahay madaxweyne muddo 2 sano ah sidoo asagu madaxweyne afkiisa ka sheegay madaxweynuhu marka waxay ahayd mudduu diidanaa axmed madoobe uu lahaa maata xukun maroorsi uu ku yimid waa boobay ma aqoonsan ayuu muddo lahaa muddo kadib madaxweynuhu wuxuu aqbalay axmed madoobe inuu yahay madaxweynaha jubbaland inuu yahay aqbalay hadduu aqbalay waa inuu u daayaa jubbaland taladeed marka waa inuu faraha u qaadaa asaga u daaya waxaa kaloo sidaa lamid a madaxweynuhu wuxuu yidhi axmed madoobe taladii dalka waa boobay jubbaland waa boobay sidaa awgeed marka gedo maadaama ay diideen reer gedo wuxuu yidhi madaxweynuhu xorriyaddooda ayaa iska leh wuxuu yidhi maadaama axmedoobe ma rabna ay dhaheen axmedoobe ha ka joogo gedo sidaas si lamida madaxweynuhu la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan ayaad muddaa inuu isticmaalayo gobolka hiiraan ayaa waxaa ka timid caqabad badan oo laga diiday dad badan oo siyaasiyiina ama dhaqana ay saluug ka muujiyeen ama ka hor yimaadeen hirshabelle madaxweynuhu wuxuu yidhi ma diidi karaan wuxuu ku daabulay ciidamo waata maalinkiis aad aragtay waxyaabaha dhacaayo oo madaxweynuhu ciidamadii ummadda soomaaliyeed ay ku taamaysay in muddo ah oo gaar ahaan weliba ciidamada harmacad oo runtii rag dhalinyaro ah oo fresh ahaa oo tababaro casri ah soo qaatay oo ummadda soomaaliyeed runtii ay ka filaysay maaragtay inay amnigooda iyo qarannimadooda iyo wax badan difaacaan madaxweynuhu inuu u isticmaalayo maaragtay caburintii bulshada uu isticmaalayo gobolka hiiraan ka dhacday waxay ka dhacday galmudug ay ka dhacday isagoo marka ku andacoonaya dadka waxay kasoo horjeedaan maamulkay kasoo horjeedaan isla gedo maamulkii jubbaland dadkii kasoo horjeeday madaxweynuhu wuxuu yidhi xaqay u leeyihiin wuxuuna ku daabulay ciidamo uu kaga hor yimid maamulkii jubbaland marka madaxweynuhu waxaad moodaa in dhinac loo raaco uusan rabitaankiisa keliya qofkii asaga rabana inuu leeyahay waa fiican yahay qofkii asaga kasoo ra'yi ahaan kaga soo horjeedana uu leeyahay waa qaldumis iyo maaragtay waa gagaxisi iyo waxweya marka madaxweynuhu waxaan rabnaa waddanka iyuuna qalalaasin laga gelin dadka iyo ciidanku waa isleeyihiin waa dad isle weligood way isla joogeen wayna isla joogi doonaan marka madaxweynuhu waxaan leeyahay siyaasadda guracan ee ummadda soomaaliyeed iyo ciidankii uu isaga horkeenayana ha ka daayo maamuladana taladooda ha u daayo madaxweynuhu wax kastuu isku dayey wuxuu isku dayey doorashadii jubbaland inuu farageliyo axmedoobe ayaa u diiday inuu garoonka ay kasoo degaan maaragtay madaxweynaha dad uu wato isla waxay ka dhacday meesha la yidhaahdo puntland doorashadeedii waa ogeen in garoonka la xiray cabdiweligaas uu yidhi wax kasoo degi kara male asagoo cabsi ka qabo faragelinta maaragtay dowladda federaal xaggeeda ka imaanaysa waxaan ognahay wixii ka dhacay meesha la yidhaahdo baydhabo oo maaragtay madaxweynihii asagooba aan la dooranba yani baabuurkiisii iyo ciidankiisii baabuur la sii saaray oo maaragtay xildhibaanadii wixii o dhan faragelin dowladda marka waxaan yani habkii federaalkii oo aan rabnay dadku rabitaankooda iyo hoos in laga soo bilaabo aan rabnay dowladdii inay isku bedeshay dowlad military ah oo ciddii ayada rabtane ciidankii qaranka u adeegsanaysa inay ku kaalmayso qofkii ayada kasoo horjeedane xabsiyo iyo maaragtay iyo caburin markasta ay cagta saaraysa waa mahadsan tahay cabdirashiid run ahaantii ma qabo aniga jubbaland iyo hirshabelle isku mid ma ahan ama gobolka hiiraan iyo gobolkeeda wax ka taagan horta ciidamada uu sheegay walaalkay waa ciidamo soomaaliyeed meel walbaan la geey karaa wadankana waa wadan soomaaliyeed loomana isticmaalayo caburinta shacabka siday la tahay anaga waa joognaa wadanka khaasatan gobolka hiiraan waa joogaa run ahaantii arrinta jubbaland ama gado waxaa ku jira faragelin siyaasadeed oo dowladda kenya
oo dowladdii run ahaantii ayada waxyaalo badan isku hayaan dhanka badda iyo dhanka xuduudkaba marka arrimo noocaas ayuu madaxweynaha sheegay gobolka hiiraanna ma jiro dowlad shisheeye oo faragelin ku hayso waa arrimo siyaasi oo arrimo gudaheena ah taasna waa tu la xalin doono wax weynna ma ahan haddana sida ii muuqato waxa waayan xalinteedana waa lagu jiraa shacabka woo kaca waa la dejiyaa marka aniga gobolka hiiraan ma jirto faragelin siyaasadeed oo wadamo shisheeye ku jirto laakiin gobolka gada ama jubbaland waxaa ku jirta gacanta ku lahaayo waa dowladda kenya oo run ahaantii barashar saarayso xayaato jubbaland inay xayaato dowladda federaalka meesha ka talan haddii ay dhacdo in waktigii loo kordhiyo madaxweynaha xafiiska hadda jooga farmaajo maxaa is leedahay arrimaha doorashadu ay ka qabsoomi karaan runtii madaxweyne farmaajo asagana waa ogyahay bulshada soomaaliyeed iyo siyaasiyiintuna waa ogyihiin xilli kordhin wax laga dheefi karo iyo wax kasoo bixi karo madaxweynuhu waxaan leeyahay yuusan noqonin boqor talexun oo ah ninkii ridina inta madax ka gooyay haddana dheriga jibiyey oo dadka haddaan aniga ka tago see ku noolaan doonaan madaxweynuhu hortiisa maaragtay waddankan lasoo maamulayay madaxa jirtay waddankaana ma burburi doono mana xumaan doono doorashana way qabsoomaysaa madaxweynuhu waxaan kula talinaynaa in dadka uu u saamaxo inay doorasho waddanka ka dhacdo is-adkaynta iyo maaragtay mara ku dhegan oo iska daayo dadkan iyo dalkan iyo ciidankan iyo ummaddan kulli waa isleeyihiin dad wada dhashay waaye weligood waa joogi jiren waana joogi doonaan qalalaase iyo foodo yuna ku abuurin intaas soo jeedin lahaa ugu dambeyn cabdirashiid gabagabada waxay tahay wadanka dadkan waa dad isla dhashay oo dad Soomaali ah meesha loo wada jeedana waxa waaye in wadanka doorasho la aado ka dhacdo run ahaantii waxa la isku hayno waxyaalo iska yaryar waxaa leenahay dowladda federaalka hore inuu u tanaasushay inay doorasho qabataan dheer rabtaa sidoo kale maamulka Jubbaland iyo Puntland oo ayaga caqabad ku ah waxaa leenahay yaa la fiirin danihiina qaaska ama dana shisheeye hala fiirin dadka guud waa ta Soomaalida taas ayna u dhimaan doontaa maxamed waxaan leeyahay waa labada maamul keliya maanta Puntland iyo Jubbaland waa labada maamul keliya maanta dhihi kara waxaana waa sax waxaana waa qalad sababtoo saddexdii maamul kale waxay noqdeen maamul gacanta ugu jira madaxweyne farmaajo oo soo rab uu ka yeelo ayay noqdeen marka waxaan leeyahay Jubbaland iyo Puntland intaasuu madaxweynuhu ka rabay ayuuna intaasay ka diideen marka waxaan leeyahay madaxweynuhu dadka ra'yigooda ha ixtiraamo labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland way ku saxan yihiin madaxweynuhu wixii uu ku qaldan yahay inay dhahaan madaxweynuhu waxaan waa ku qaldan tahay intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo aad buu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayey markana ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydii oo inoo haya ibraahim xasan daandurey kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena dhakhtarka weydii oo marti igu yahay daktar ibraahim sheekh maxamed dasuuqi oo ku takhasusay daaweynta cudurrada gudaha ee wadnaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee aflax ee magaalada muqdisho marka hore ayaa daktar dasuuqi waxa uu ka hadlayaa cudurrada ugu badan ee ku dhaca wadnaha oo ay ka cawdaan dadka ku nool Soomaaliya cudurrada wadnaha ku dhaca waddankeena u badan waxa weeye koow waxaa ah cudurka dhiigkarka iyo dhibaatada wadnaha u geysto waxaa labaad oo ku soo xiga cudurkan guud ee adduunyada dhan maanta saameeyey ama halakeeyey ee la dhihi karo waa cudurka koowaad ee maanta adduunyada ay u dhimato ee dhibaatada iyo xanuunka iyo dhimashadaba keena ee markiisa guud ahaan la yidhaahdo atherosclerosis oo micnihiisu uu yahay xaydh fadhiisanaysa xididada wadnaha waraabiya wadnuhu wuxuu leeyahay sida la ogyahay si toosa dhiigga ugama qaato dhiigga gudihiisa ku jira si toosa ugama qaato ee xidid baa intuu ka baxo oo la yidhaahdo coronary artery yaa dib ugu soo laabta oo isaga waraabiya oo dhiigga siiya xididkaas ayaa xaydhi xidhaysaa xididkaas ayaa cidhiidhi gelaya markuu cidhiidhiga yahay oo uusan wada xidhmin wuxuu keenaa xanuun la yidhaahdo angina pectoris ama xabad xanuun xoog badan hadduu xididku wada xidhmana wuxuu keenaa myocardial infarction wax la yidhaahdo oo micnaheedu uu yahay xididkaa xidhmay qaybtii uu waraabinaya wadnaha ayaa dhimanaysa qofkuna xanuun xoog leh aad u xoog badan ayuu dareemayaa xididka xidhmay haddii uu weyn yahay waxaa suuroodo qofku inuusan ka kicin xanuunkaas si kastaba haddii loola tacaalay inuusan ka kicin laakiin haddii uu xididka xidhmay uusan sidaas u weynayn oo qaybta wadnaha ka mid ahee
la dhihi kara way dhimatay micnaheedu waa saas myocardial infarction waa sidaase ayna sidaas u weynayn waxa weeyaan qofku xanuun badan buu dareemi waxa suurowda inuu bararo waxa suurowda inuu neeftu ku dhegto waxa suurowda marka laakiin marka dambe inuu ka kaco waa suurtagal labadaas cudur ayaa ugu badan waxaa kale oo iyaduna ka mid ah cudurrada waddankeena u badan cudurrada kale adduunyadana aan la wadaagno waxaa ka mid ah wadnaha garaaciisa oo isbedela wadnuhu wuxuu leeyahay matoor buu leeyahay korontada dhaliya matoorka waxaa ka soo qaada xadhko oo korontada u qaybiya wadnaha u qaybiya marka korontadaas ayaa isbedel ku dhici karaa marka waxaa lagu yidhaahdaa af ingiriisiga arrhythmia ayaa la yidhaahdaa waxyaabuhu qofku dareemo waxaa ka mid a wadna garaac ayuu dareemaa marka kaasna waxaa weeyaan arrhythmia la yidhaahdaa waa qayb aad iyo aad u fara badan waxaa fara badan oo waddankeena aad looga helaa waxyaabaha loo yaqaano congenital heart disease oo ilmaha uu uurka hooyadii kala soo baxo oo aad iyo aad dhibaato inoogu haysa ilaa iminkana aan xal loo helin oo ilmihii caloosha hooyadii kala soo baxo cudurradaas xunxun qalliin degdega hadduusan helin laga yaabo isaga oo aan qaan gaadhinba inuu dhinto ama inta uu nool yahayna uu silic ku noolaado marka cudurradaas ayaa ugu badan xanuunada wadnaha ku dhaca haddaba ayay ku badan yihiin dadka da'da dhallinyarada iyo carruurta haddii xanuunku yimaado waa isku mid laakiin dhallinyarada ama carruurta xanuunada ku dhacay waxay u badan yihiin ama ay yihiinba carruurba mar haddii la yidhaahdo kuwa loo yaqaano congenital heart disease oo micnaheedu uu yahay xanuun wadna ku dhacay oo caloosha hooyadii ilmuhu uu kala soo baxay iyaga naftooda waa fara badan yihiin waddankeenna aad iyo aad bay ugu fara badan yihiin waxaa la yidhaahdaaba boqolkii carruurahee nolol ku dhalata mid ayaa nooc ka mida qaba xanuunka isaga ah aad iyo aad ayaanu aragnaa waa wax caloolxumo maaragtay kugu abuuraya oo aan wax weyn loo qaban karayn marka carruurta marka la yidhaahdo xanuunka ugu badan horta waa kaas dhallinyarada haddii la yidhaahdo waxa weeye congenital heart disease way kala duwan yihiin qaar waxaa jira uusan qofku hadduusan dhaqso loo qalin uusan noolaanayn oo iyagoo yarba ay dhimanayaan way jiraan qaar waxaa jira ka fudud kuwaasoo uu qofku qaangaadhi karo marka waxaad arkaysaa ruux dhallinyaro uunoo kuu yimid oo laga yaaba inuu wax kale kuugu yimid markii wadnihiisa aad dhegaysatay inaad aragto inuu qabo cudur ka mida cudurradii maaragtay caloosha hooyadii uu kala soo baxay waxaa kale oo jira oo aad isna u fara badan adduunkana ku badan waddankeenana ku fara badan oo dhallinyarada ku dhaca cudurka la yidhaahdo rheumatic heart disease waa cudur uu keeno nooc bakteeriyada ka mida uu keeno marka horena ku dhaca dhuunta iyo qumanka ku dhaca kadibna u gudba wadnaha qayb ka midana ay keliyaha u gudubto rheumatic heart diseasekaas waxaa suurtagal ah haddii uu yahay nooca loo yaqaano fulminant hadduu yahay inuu geeriba keeno way dhici kartaa intaa haynuu joogo barnaamijkeena dhakhtarka weydiiya uu marti ugu ahaa toddobaadkan dr ibraahim sheekh maxamed dasuuqi oo ku takhasusay daaweynta cudurrada gudaha iyo wadnaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee aflax ee ku taala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiyayey barnaamijkaasi dhakhtarka weydii guud ahaana dhegaystayaal idaacaddii galabnimo intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa waa caashe ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shiruuc oo idaacadda si wada jira halkan idinkala socodsiinayo oo idinle sidaa iyo nabadgelyo